السلام عليكم أصحابتنا قيمة إيقايا على ميل كستو أدجوكتانبا maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno laba qodob oo aad iyo aad muhiim u ah labadaas qodob ka mid ah waxa soo weydiiyay asxaabta ku xiran channelkan gaar ahaan qaybta technology-ga qodobka kalena waxaan rabaa inaan ku daro labada qodob waxay yihiin laba qodob oo aad iyo aad dhammaanteen muhiim ugu ah qodobka koowaad waxa waaye adiga oo Soomaaliya joogto waqtiga hadda la joogo xilliga hadda la joogo online wax ma ku iibsan kartaa sida Amazon iyo eBay iyo Alipay ama Alibaba ama online-ada kale wax ma ku iibsan kartaa oo gurigaaga ma lagu keeni karaa alaabtii wixii aad dalbatay qodobka labaadna waxa waaye anagoo og maalmahan waxa soo batay website-yada scammerska ama website-yada dadka lagu dhaco sidee ayaad ku ogaan kartaa website-yada noocaas oo isaga ilaalin qodobka koowaad hadii aan ku hormarno asxaabay waxa jirtay in muuqaalo badan aan horey u soo dhignay oo ka hadlaaya tiknoolajiyada iyo sida online wax looga gato sida Amazon wax looga dalbado waxa jiray Muqdisho magaalada Muqdisho oo hadda aan ku suganahay waxa jiray company la yiraahdo Aramakis International oo branch ama xafiis ugu furnaa Muqdisho ugu furnaa branchgaas wuxuu fududeyn jiray in dadka Muqdisho jooga ama meel kasta gobolada joogaba ay wax ku dalbadaan si online ah wuxuu isku xiraayay shirkadda wax laga soo iibsanayo company wax laga soo iibsanayo iyo website kale oo la yiraahdo shop and ship sidaas daraadeed qofka waxa loo sameeyay ciwaan ayaa loo sameeyay address loo sameeyay sababtoo ah hadii adiga aad online wax ku iibsanaysid waxa muhiim inaad address ama ciwaan leedahay sida horeyba aan ugu soo sheegnay muuqaalo hore aan soo dhignay bartan Aramakis qaybteeda Muqdisho waxay fududeyn jirtay in dadka u sameeyso ciwaano si ay wax u soo iibsadaan online wax ugu soo iibsadaan wax badan ayaa dadka reer Muqdisho ay wax badan ka soo iibsan jireen nasiib darro hadda branchgaas uu xiran yahay kulay sababo ayaa jiri karo oo loo xiray ama ha noqdaan sababo siyaasadeed ha noqdaan ama sababo dhaqaale ha noqdaan soo hadda kama shaqeeyo magaalada Muqdisho mana naqaano goorta la furi doono hadii la furo waan arki doonaa hadii uu sidaas ku xirmayna waa fursad adigana ku furan oo aad ka samaysan kartid branch Aramakis aad Muqdisho keesan kartid hadii galgalkaagu aad u badan yahay waxaana si wanaaga dadka reer Hargeysa in Aramakis ay u shaqeynayso company branchga Aramakis Hargeysa uu ka furan yahay dabcan Aramakis meelo badan uu ka furan yahay dalalka adduunka inta badan uu ka furan yahay xogaa marka hakadkaas ayaa galay oo hadda qof Muqdisho joogo waxyaabaha si uu online wax ugu soo iibsado wuxuu sameyn karaa kaliya qof maaragtay ehelkiisa dibadda addresskiisa inuu sheego halkaas alaabta loo dhigo DHL iyo si kale alaabta in looga soo diro habkaas oo hab aad qaali ah oo lacag badan delivery costiga aad ugu baxayso anaga waxaan isku dayi doonaa oo hab kale waxaan leenahay hadda ciwaan waxaan leeyahay aniga oo meel kasta oo adduunka ah oo aan ka sameeyay halkaas kaliya ciwaankii Muqdisho ayaa aan functional ahayn waxa suurtagal in meel kale ku xirto oo aan sida ay wax ugu fududaadaan laakiin hadda gibi ahaan arintaasi waa ma yara shaqeynayso hadii aad Hargeysa joogtid waxaad tagi doontaa Aramakis waxaad dii doontaa address ismay addresskaas ayaad ku xiran doontaa website-ka adiga aad wax ka iibsanaysid isku day mar walba website-ka aad wax ka iibsanaysid waxaad ku xirtaa PayPal-kaaga ku xiro sababtoo PayPal-ka waxa fudud wax la yiraahdo refund hadii lacag ay ka khaldanto PayPal-ka waxa ku fudud in lacagtii hore laga soo celiyo laakiin hadii debit card ama Mastercard-ka aad ku xiratay oo aad wax ku iibsatay waxa suurtagal ah in refund-iga uusan degdeg ku imaan soo marka waxa lagu taliyaa in PayPal-ka oo aad ugu wanaagsan yahay halkii aad Mastercard-ka ama debit card-kaas aad wax ku iibsan lahayd marka isku soo duubo mowduucaas xilliga hadda la joogo aad ay adag tahay in gaar ahaan dadka Muqdisho joogo ay si toos ah wax u soo iibsadaan si toos ah gurigooda looga keeno laakiin mustaqbalka dhow way dhici kartaa arintaas ama shirkadii ha soo noqoto branchigii effective ha noqdo ama branchigii dad kale ha asaasan qodobka labaad ee aadka muhiimku ah waxa waaye waxa soo batay qaabab kala duwan oo dadka scammerska website-yada dadka khayaameeyo oo dhaca ee dadka ku dhacaan scammers la yiraahdo website-yadaas hadda website-yadaas waxa ku garanaysaa waad aragtaan dabcan meelaha baraha bulshada ay wareegaya WhatsApp-yada ay wareegaya la soo share gareeyo aniga muddo ayaan ku bixiyay research ama cilmi baaris aan ku sameeyay oo aan raadiyay aniga nafsiyada aan lacag ku bixiyay
inaan share gareeyo waxyaabaha la soo dhigayo kuwa qaar waad aragteen waxay ku leeyihiin website-ka linkigiisa u dir intaasoo qof markii lacagtaada intaas ay gaarto ama dadka aad linkiga u dirayso intaas ay gaarto ayaan lacag ku siinayna marka waa been wax dadka lagu dhaco waxaa la rabaa inaad arrintaas ka feejignaatid inta badan waxaa lagu garan karaa website-yada noocaas ah ma lahan meel lagala xiriiro ma garanaysid qofka website-kaas leh meeluu joogo copyright ma lahan okay copyright-kiis update ma lahan contact us oo ma lahan oo menuadiisa kama arkaysid about page-na ma ka arkaysido wixii uu page-kan qabanaya iyo inta badan waxaa kaloo loo garan karaa Facebook uma xirno oo inta badan website-yada Facebook lagu xiraa iyo address kale ama ha noqdaan meelo kale sida Instagram-ka iyo meelo kale haba noqdaan ayaa lagu xiraa kuma arkaysid ma arki kartid cid aad la xiriiraysid website-yada noocaas inta badan waxay soo bandhigaan waxyaabo aad iyo aad raqiis u ah oo ay kugu soo jiidanayaan adiga kugu soo jiidanayaan marka inta aadan website noocaas aadan waxba ka gadan ama aadan xiriir la sameeynin dabcan dadka aqoonta u leh la kaasho waxyaabaha kale ee lagu garan karo waxaa ka mid ah inta badan ma lahan http wax la yiraahdo oo waxaan laga fiiriyaa URL-ka URL macnaha waxa uniform resource allocator la yiraahdaa waa meesha www.com lagu qoro www page-ka website-ka magaciisa.com lagu qoro halkaas waxaa ku qoran https kaas website-kaas waxa waa secure waana website inta badan ammaan ah inkastoo mararka qaar ay jiri karaan website-yada noocaas ah waxyaabaha lagu garan karo website-yada waxaa ka mid ah waxay leeyihiin extension tusaale ahaan domain name oo xarfa badan ah tusaale ahaan waxaa laga yaabaa xyz inuu noqdo .com meeshuu ka dhihi lahaa waxaa jira wax la yiraahdo TLD ama top level domain ka la sheegay waxa waaye domainada .com iyo .net iyo .gov iyo xabaha noocaas ayaga kuwaas wax ka baxsan ayaad arkaysaa .xtd .xyz xarfada dheer oo la raaciyay waxyaabo noocaas arkaysaa marka waxyaabahaas ayaa inta badan lagu gartaa email aad kala xiriirtid ma arkaysid telephone aad kala xiriirtid ma arkaysid soo website-yadaas waa website-yada spammers ka la yiraahdo ee dadka lagu dhaco maalmahan waad aragteen xitaa waxay soo galeen Telegram iskay soo galeen waxaad arkaysaa kuwa iska dhigaya company iska dhigaya oo company-ga loogadiisa soo qaadanaya marka take care please iska ilaaliya aad isaga ilaaliyo kuwa qaar oo dibadaha laga leeyahay waxay sameeyaan Telegram-ka in ay soo saaraan dhalinyaro Soomaaliyeed ay muuqaal inta ku xadaan dhalinyaradina ay yiraahdaan lacag ayaan halkan dhigtay $100 aan dhigtay tusaale ahaan 4 saac kadibna waxaa helay $1500 ama $2000 aan helay 4 saac kadib marka waa been dhalinyaradaas marka muuqaalka lagu soo xaday muuqaalka marka adiga lagu soo jiidanayaa waxaa lagu tusinayaa sawiro lacaga fara badan dad haya iyo dad gawaari ku raaxaysanaya macluumaad noocaas lagu tusinayaa shirkadda hadda aan arki karo aadka dadka u dhacda waxa waaye waxaa la yiraahdaa hot forex trading la yiraahdaa marka iska ilaaliya magacaas way bedelaan magacyo kala duwan ay soo saaraan marka hot forex investment waxyaabo noocaas keenaan waxay ku leeyihiin invest 100 and receive 1500 within 24 hours ay ku dhaayeen 4 saac ku hel $1500 that's impossible suurtagal maahan marka iska ilaali dadka ay dhacaan linkiyada inta badan la soo diro oo lagu yiraahdo share gray si ay dad kale u gaaraan marka waxaas wax ka jira malahan Soomaaliyeed iska ilaaliya yaanan hantidiina la dhicin hantidiina yaanan si bilaash ah lagu dhicin okay website-yada noocaas ee dadka lagu dhaco markasta domain name oo cheap ay soo gataan raqiis ay soo gataan waxayna iska dhigaan website la yaqaan oo caan ah ay iska dhigaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkii labada ciwaan ka koobnaa oo ahaa xilligan anigoo tusaale ahaan Muqdisho joogo online waxaan ku iibsan karaa iyo sideed isaga ilaalin kartaa website-yada dadka dhaca ee la yiraahdo spammerska inta aan mowduuc noocan aan ka kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo like share comment gambalalka dhaysi